Waxaan maanta daha ka rogaynaa taariikhda mid ka mid ah saaxiriinta ugu saameynta badnaa ee abid soo maray dunida kubadda cagta. Waa farsamayaqaanka aan la loodin karin, boqorka caawinta iyo halbowlaha guulaha kooxda Manchester City. Kevin De Bruyne waa xiddig baaskiisu uu yahay farshaxan, aragtidiisuna ay tahay mid ka horeysa waqtiga. Haddaba saaxiibayaal, waxaan si qoto dheer u dhexgeli doonaa waayihii dahabiga ahaa ee Kevin De Bruyne uu ku soo qaatay garoonka Etihad Stadium iyo sidii uu u noqday halyey aan marnaba laga tirtiri doonin taariikhda kooxda Sky Blue. Hase yeeshee is-xasuusin, haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalka oo u share garay saaxiibadaada. Sidoo kale haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan na soo follow garay, like saar muuqaalka oo u share garay saaxiibadaada. Mahadsanid, aan u sii guda galno qodobkeena koowaad. Imaanshihiisii kooxda. De Bruyne waxa uu Manchester City ku soo biiray 30kii Agoosto 2015 isaga oo ka yimid kooxda Wolfsburg ee dalka Jarmalka. Qiimaha saxiixiisa wuxuu ahaa 55 milyan oo pound, taas oo xilligaas ahayd rikoorka ugu qaalisan ee kooxda. Inkasta oo ay dad badan shaki ka geliyeen inuu ku habboon yahay Premier League kadib waayihiisii hore ee Chelsea. 2. Safashadiisii ugu horeysay. Wuxuu saftay kulankiisii ugu horeeyay 12 Sebtembar 2015 isagoo bedel ku soo galay kulan ay la lahaayeen Crystal Palace. Goolkiisii ugu horeeyayna wuxuu dhaliyay kulan ay guuldaro 2-1 ah kala kulmeen kooxda West Ham isla bishaas dhexdeeda. 3. Aragtida iyo caawinta. Kevin De Bruyne waxaa lagu naanaysaa boqorka caawinta. Wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu dhaqsiyaha badnaa ee gaara 100 caawin taariikhda Premier League, isagoo ku gaaray 237 kulan. Waxa uu caan ku yahay karoosyada ee uu ka soo tuuro garabka midig ee daafacyada iyo goolhayaha dhexmara. 4. Rikoorada goolasha. Inkasta oo uu yahay khadka dhexe, haddana waa gool dhaliye khatar ah. Wuxuu dhaliyay in ka badan 100 gool intii uu joogay Manchester City. Waxa uu caan ku yahay goolasha ka dhasha meelaha fogfog iyo isticmaalka labada lugood si isku mid ah. 5. Xilli ciyaareedkii taariikhiga ahaa. Xilli ciyaareedkan, De Bruyne wuxuu barbareeyay rikoorkii caawinta ee Thierry Henry isagoo sameeyay 20 caawin hal xilli ciyaareed gudaheed. Bandhigaas wuxuu u horseeday in loo doorto xiddiga sanadka ee Premier League PFA Player of the Year. 6. Koobabka uu la qaaday. De Bruyne waxa uu Man City la qaaday koob kasta oo macquul ah oo ay ka mid yihiin 6 Premier League, 1 Champions League, 2 FA Cup iyo 5 Carabao Cup. 7. Guushii taariikhiga ahayd ee Treble-ka. Kevin De Bruyne waxa uu door laf-dhabar ah ka qaatay xilli ciyaareedkii 2022-2023 markaas oo City ay ku guuleysatay Champions League, Premier League iyo FA Cup. Inkasta oo uu dhaawac kaga baxay finaalkii Champions League, haddana kaalintiisii xilli ciyaareedkaas waxay ahayd mid aan la bedeli karin. 8. Wada shaqeynta isaga iyo Erling Haaland. Imaanshihii Haaland ee 2022 waxay kor u qaaday saameynta Kevin De Bruyne. Labadan xiddig waxay sameeyeen isfaham aan caadi ahayn, iyadoo baasaska Kevin De Bruyne ay u bedeleen Haaland mashiin goolal dhaliya, taas oo kor u qaaday tirada caawinta De Bruyne. 9. Kabtanimada kooxda. Kadib bixitaankii Fernandinho iyo Ilkay Gundogan, De Bruyne wuxuu noqday mid ka mid ah hogaamiyayaasha rasmiga ah ee kooxda, isagoo inta badan xirta calaamadda kabtanimada kuna hogaamiya saaxiibadiis. Tusaale ahaan, dhanka garoonka. 10. Shakhsiyadda iyo xirfad-yaqaannimada. Kevin De Bruyne waxaa lagu yaqaanaa dabeecad deggan laakiin tartame adag ah. Hadalkiisii caanka ahaa ee Let's Talk ee uu ku yiri saaxiibadiis xilli uu garoonka ku jiray ayaa muujinaya kalsoonida iyo hogaaminta uu ku leeyahay dhexda garoonka. 11. Abaalmarinta shakhsiga ah. Kevin De Bruyne intii uu joogay Manchester City waxa uu ku guuleystay 2 jeer abaalmarinta PFA Player of the Year, ciyaaryahanka ugu fiican England,
3 jeer Premier League Playmaker of the Season. Sidoo kale wuxuu marar badan ku soo baxay kooxda sanadka ee FIFA Pro World 11, 12 rikoorada Champions League. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu goolasha iyo caawinta badan Man City ee tartanka Champions League. Goolashiisii muhiimka ahaa waxaa ka mid ah kuwii uu ka dhaliyay Real Madrid, PSG iyo Athletic Madrid xilliyadii go'aanka ahaa. 13 adkeysiga ka dhanka ah dhaawacyada. Inkasta oo uu la kulmay dhaawacyo halis ah, gaar ahaan jilibka iyo muruqa, haddana markasta oo uu soo laabto wuxuu muujiyaa heer ka sareeya sidii hore. Soo laabashadiisii bishii January 2024 kadib 6 bilood oo uu maqnaa ayaa tusaale u ahayd tayadiisa aan dhammaanin. 14 saameynta uu ku leeyahay maamulka Pep Guardiola. Pep Guardiola ayaa marar badan ku tilmaamay De Bruyne inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee uu weligiis tababaray. Kevin De Bruyne waa mashiinka fuliya falsafadda Guardiola ee baasaska degdega ah iyo weerarka tooska ah. 15 dhaxalkiisa. De Bruyne waxa uu hadda fadhiyaa miiska ciyaartoyda ugu waaweyn ee soo maray Premier League sida Steven Gerrard, Frank Lampard iyo Paul Scholes. Taariikhda Manchester City waxa uu ku qoran yahay isagoo ah laacibka ugu saameynta badan ee xilligan casriga ah ee kooxda. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg Kevin De Bruyne waayihiisii kooxda Manchester City iyo guulihii iyo waxqabadkii uu sameeyay. Intaan ku kulmi doono muuqaal kan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.